أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله. إلا الدوريو إلا بدلو وياهي وكم ممنوع ولحفظ الله له إلهي بحفظي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلهي باير أحد بدل كرامة جر انت اصلا كنه يعني سنو هدي لمرو اسم بدل لي قرآن كسيدي سوي أحدنا ما بدل كروان إلهي بقى أبلن قاعدين وحفظني. المعجزة المستمرة معجزة دي مستمرة هيد وولي جيد يعني دائم كهيد وقرآن قرآن هو معجزة أقوين والنبي اللي سيوه المعجزة قرآن معجزة الذي أعجز الفصحاء من العرب عن معارضتي لمنك عربتها يا ولي برهي قراشات أهل الحجاز وأنمك عربت أقول فصاحة بدن بيهاي وقرآن اللغة ذو كسوة دقيه يا وحا عجز قلييه عن معارضتي قرآن إنه كهر تقع إنه يسكهر تقع بيسكو ضيين يعني والله دوان وايوي قف يعني أسوك لي ما دوي وذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعاهم وحويري للإتيان بمثله بالقرآن كانوا كلا الله إماذا فعجزوا ويكعجزين ثم ب10 صور طوان صورة دولو أساقوا كلا الله إماذا فعجزوا ثم بمثل أخطر صورة منه صورة أقوق قاضا قرآن كان والله إماذا لرواية فعجزوا ثم نادى بذلك على جميع البلقاء والفصحاء dadkii bulaqada ahaa ee balaaqada aad ugu xeel dheeraa fusaxada ahaa ee yani reer carbeeda waxaad yani ku hadli jiray ayuu u dhawaaqay oo maca kasratihim facajazu inay isku dayaan bay damceen waa la imaan waaye xataa ay ka doortaan qur-aanka inay ka hor tagaan oo mucaaradayaan waxay ka doorteen yani qur-aankaan anagu kama hortagi karna yidhahdeen laakiin ninkaan aan la dagaalano seefu qaadan dagaal bay marka bilaabeen iyo seef markii yani fasaaxo ay keeni waayeen oo qur-aankii lagu cajisgeliyo ay la imaan waayeen asagoo kale marka dambe xataa ay dhuuman jireen oo dhihi jireen war ilaah maxamed yuusan na maqlaynin meesha ay meelaha ugu qariya qur-aan baa kusoo degayo sifaadkoodii oo dhan baa la sheegi kalaamkaasoo kaleetana ma sheegi karaan oo cajisgeliyo waay marxaban marka quraanka fasaaxadiisa waxa kamid ilaahay suu yani fasaaxada uu yani quraanka kalaamka baliiqnimadiisa hatta inna jamaa'atan minhum wa ay jamaa'a oo qoladii carbeed ee fasaaxada ahayd kamida kaanu waxay ahaayeen yarqusuuna ru'uusahum 'inda simaa'i qawlihi ta'ala madaxay sidaa u lulu jireen ay madaxay lulayaan markay maqlaan ilaahay aayadiisan waqiila ya ardu bla'i ma aki waqiila ya ardu bla'i ma aki ayada waxay la yaabeen fasaaxadeed yaa ardu iblaci maa'aki biyahaga laq qaaluu yidhi wasajada waaxidun minhum cinda simaaci qawlihi tacaala mid baaba sujuuday markuu maqlay fasdac bimaa tu'mar wa acrid can ilmushrikiin wixii lagu amray daahiri wa acrid can ilmushrikiin gaalada isaga jeeso markaasuu sujuud la dhacay markaasina maxaad u sujuud wuxuu yidhi sajadtu lifasaxati hada alkalaam hadalkan fasiixnimadiisa un baa la sujuuday waa hadal cajiiba oo baliiqa saasuu leeyahy waxaa la wariyey imaamka asmaci la yidhaahdo ayaa wuxuu maqlay gabar yar oo tatakalam hadlayso fatacajaba min fasaaxatiha gabar yar oo reer carbeedoo hadlayso markaasuu fasaaxadeeda la yaabay gabadha say u hadlayso faqaalat lahu waxay u tidhi yaa haadaa kanow sheekhii bay la hadashay asmaci aha yaa haadaa wahal taraka alqur'aanu liaxadin fasaaxa aniga miyaad fasaaxa igu sheegaysaa oo quraanku miyuu qofna fasaaxo uga tagay qof fasaaxo uga tagay ma jiro fasaaxo dhan quraanka umba iska leh ahad kale oo fasaaxo lagu tilmaami kara hadalkiisa ma jiro iqra bal akhri baytiri qawluhu ta'ala wa awhayna ila ummi musa an ardi'ih fa idha khifti alayhi fa alghihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin ayadas bal akhri baytiri faqad jama'a fiha ilahi wuxuu kulmiyay بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين يا هلك آيات كجرت بالفير فساعات كجرت لين بين أمرين لما أمر با كجرت أن أرضعيه ويلك النوجي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم والله ما أمر أن أرضعيه هي فألقيه في اليم ونهيين لما النهيين ولا كجرت يا ولا تخافي ولا تحزني يا عبسن هنا مرجن وخبرين
laba khabarna way ku jirtaayo awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciihi faidaa khifti awxaynaa iyo faidaa khifti waa laba khabar wey wa bishaarataynina way ku jirtaa aayadda oo innaa raaduuhu ilayki wa jaaciluuhu min almursaliin waan kuu soo celinaynaa weliba waxaan ka dhigaynaa rususha ayuu ka mid yahay marka halkaa aayaddaa bal inta ku jirta fiiri bay leedahay ya marxaban marka halkaas aayadda ah maxaa lagu kulmiyey laba amar laba nahyi laba khabar iyo laba bishaaro marka yacni fasaaxada qur'aanka markaad qur-aanka fiiriso axad kalaa fasaaxa leba ma dhehaysid qof fasaaxa looga tegay maba jirta way qur-aankii baa wax walbaba dhameeye waxaa kaloo la wariyey ina bacda bidaariqati ruum nimankii madaxdaayoo reer ruum mid ka mida way bidriiq waxaa la yidhahdaa ninka yacni hogaaminayo yacni 10,000 oo ciidan ah 10,000 oo ciidana ninka yacni u ah yacni hoggaanka u ah ninkaaba waxaa la bidriiq baa la yidhaha bidriiq waa yahay marxaban ko marka ninkii madaxda ahaabaa wuxuu maqlay oo reer ruum yo wuxuu maqlay yacni man yaqra' qof akrinayo waman yudic illaaha warasuulah wayaksha allaha wayattaqhi fa ulaa'ika hum lfaa'izuun aayaddaa ayuu maqlay fa aslama wuu soo islaamayba aayaddaasuu ku soo islaamay waman yudic illaaha ilaahay ninkii adeeca warasuulah wayaksha allaha ilaahay ka baqo oo wayattaqhi ilaahay ka cabsado fa ulaa'ika hum lfaa'izuun marxaban wuu soo islaamay wa jaa'a ilaa sayidinaa cumar buu u yimid wa akhbarahu wuxuu u sheegay ana haadihi alaaya jamacad inay kulmisay kula maa unzila calaa sayidina ciisa nabi ciise wixii lagu soo dejiyey oo dhan oo min axwaali dunya waalaakhira aayaddanaa kulmisay oo weliba yacni hadda halkan kumuuna soo qaadina meelaha qaarkood ba waxay qori jireen yaa wuxuu yidhi aayaddanaan ku soo islaamay sayid cumarow weliba macnaheeda iga dhegayso waan kuu macnaynayaa markaasuu yidhi bal macnahead waman yudic illaaha ilaahay ninkii adeeco fi lfaraa'il wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca fi sunan wayaksha allaha ilaahay ka baqo fii ma madla wayattaqihi yacni ilaahay ka cabsado fii ma huwa aatin fa ulaa'ika hum lmuflixuuna marxaban saasuu ku fasiray waa ninka hadda soo islaamaygo saasuu ku fasiray ya ilaahay ninkii adeeco faraaisha oo faraa'isha guto rasuulkiisana adeeco sunnooyinka la yimaado wayaksha allaha ilaahay ka baqo fii ma madla dembigii horay uu u sameeyey buu ilaahay kaga baqaya waxii hore ilaahu yacni ilaahu ha ii qabani bule wuu ka baqaya wayattaqi ka dhowrsado iska ilaaliyo fii ma huwa zamanka waktiga soo socdana mustaqbalkaana dunuubta iska ilaaliyo fa ulaa'ika hum lfaa'izuun sayid cumar wuxuu yidhi sadaqa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa run sheegay buu yidhi maxaa yeele wuxuu yidhi buu yidhi waxaa la isiiyey jawaamic alkelim baa la isiiyey uutiitu jawaamic alkelim yacni kelimooyin jaamica oo lafdiguna gaaban yahay macnahooduna baliiq aha la isiiyey rasuulkaasaa yidhi buu marka macnaha aayadda ku jirta bal fiiri aaya ku jirta fasaaxada qur-aanka marxaban marka waa sidaa marka mucjizo weeye qur'aanka bilqur'aani baa lagu ayiday rasuulka lagu karaameeyey almucjize almustamirati oo daa'imadahayd calaa tacaaqubi siniin sanooyinka yacni weligeed waa mucjizo daa'imaho aan isbedelayninoo aan laga tegaynin qur'aanku waay mucjizaadka ilaahay uu nabiga siiyey mucjizo ugu weyn weeye qur-aanka ilaa qiyaami saaca tu saacadda qiyaama ilaa ay ka dhacayso qur'aanku saa unbuu baaqi isaga ahaana way mucjizaadka kaloo dhan waayahay waxaa laga yaabaa inay iska baaba'aan rususha mucjizooyinka la siin jire o dhan way iska baabi'i jireen laakiin mucjizadaha rasuulka la siiye oo qur'aankaa weligeed yacni ma baaba'ayso marxaban wa bisunani sunnana yacni waa lagu karaameeyey almukarabi bilqur'aani yaa nabiga lagu karaameeyey iyo wa bisunani sunnooyin baa lagu karaamey walmukarami bisunan jamcu sunnatin weeye wahiya luqatan adariiqa dariiqada wanaagsan baa lagu yani nabiga lagu karaameyey walmuraadu bihaa hunaa waxaa looga jeedaa maa uuxiya ilayhi waxa nabiga loo waxyooday oo wa alhamahu llahu ilaahay uu ku ilhaamiye waa axkaamtan ilaahay uu siiyey marxaban nabigu wuxuu leeyahy alayhi salatu salaam waxaa la isiiyey qur'aanka iyo wax la eg baa la isiiyey wa milahu macahu waa sunnadii waay sunnadii ayaa yacni la siiyey way nabiga sunnadaa waxaa la yidhahdaa maa sanahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu jideeyey ay maa sharacahu min alaxkaam axkaamtuu nabiga jideeyey fardan ow naflan waay almustaniirati oo ifaysa sunnadii mustaniirada ahayd oo ifaysa lilmustarshidiina kuwa yacni hanuunka dalbayay ay daalibiina rushda hanuunka iyo walistiqaama kuwii doonayey ayay u iftiimaysaa almaqsuusu lagu khasisay bijawaamici alkelim
nabigii almaqsuusi lagu khasisay bijawaamici alkelimi kelimooyinka jaamica oo duuna gayrihi min alambiyaa'i waarusul ambiyadii kale iyo rasushii kale lama siinin yacni jawaamicu kelimkaas kelimooyinka bilkelimi aljawaamici waaye min idaafati sifati lilmawsuuf weeye yacni bilkelimi kelimooyinkii aljawaamici macnaha weyn ururinay wahiya iijaazu lafdi lafdiga oo la gaabiyo weye maca sicati almacnaa macnahana uu waasac yahay baa marka waxaa la yidhaha jawaamicu lkelim macaani fara badan baa soo hoosgelaysa lafdiga qaliilka awal wa hada amrun maxmuud waa amar wanaagsan lafdi gaaban oo baliiq aho macno weyn taabanayo haddii aad ku hadasho wey xasan binu cali baa wuxuu yidhi radia allahu canhuma khayrulkalaami maa dalla waqal hadal waxaa ugu khayr badan wixii gaaban oo yacni macnadan waxaa loo jeeda muraadkana ku tusiiyo waa marka jawaamiculkelim baa nabiga la siiyey jawaamiculkelimka macnaheeda nabiga lagu khasisayna waa laba nooc say jawaamiculkelim hadalkiisu u noqonaya waa laba nooc way mid waxaa weeye maa huwa fi lqur'aani qur'aanka yacni naftiisaaba jawaamiculkelima oo qur-aanku fasaaxo iyo wax walba wuu dhameeyey oo waxa nabiga la siiyey ee yacni jawaamiculkelimkaa mid waa qur'aanka ka qowlihi caza wajal ilaahay qowlkiisi baaba ka mid a ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan wa iitaa'i dilqurbaa wayanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkari waalbaqi bal fiiri aayaddaa lafdigeedu waa gaaban yahay wanaag oo dhanna waxay ka tagtay male xasanu basri baa wuxuu yidhi lam tatruk haadihi alaaya aayaddan kamayna tegin khayran ilaa amarad bihi way amartay walaa sharan shar kamayna tegin ilaa nahad canhu way nahyisay waana aayad macnaheedoo dhanba la wada fahmaayo macnaheeduna uu aad u fudud yahay